kulanti wacan oo wanaagsan meel aad joogtaan badda odayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida Kalson TV oo aanu ku soo qaadan doono barnaamij faaqidaada oo ku saabsan socdaalkii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo ku marayo gobolada bariga Soomaaliland isagoo haatanna ku sugan gobolka Sanaag caasimadiisa Ceerigaabo madaxweynaha maanta uu ka soo laabtay areeraha waliba uu ka soo noqday gobolka isagoo ku sugan markii ugu dambeysay barnaamijkan uu ka warhayo wuxuu marayay gobolka Saaxil isagoo u sii jeeda magaalada Hargeysa kadib markii socdaal qaatay muddo toddobaad ku dhow isaga iyo wafdi dawladdiisa ka tirsan ay ku marayeen gobolada bariga Soomaaliland meelihii uu maray iyo waxyaabaha la xidhiidha gobolkan ama deegaamada uu maray ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan wuxuu ku saleysnaan doonaa qodobo go'an oo aanu isla garanay in aanu halkan ku naaqashno sidoo kalena waxaa idin badan idinkana inaad ka qayb qaadataan waliba haddii aad ku sugan tahay gobolada uu madaxweynuhu soo maray oo aad hayso wax raaya dhinaca doonaba ahaadee oo la xidhiidha saamaynta ay ku yeesheen wafdiga iyo xukuumadda Soomaaliland oo iyagu ah kuwa halkaasi u tagay sida ay sheegeen hawlo la xidhiidha wixii loo doortay oo ah inay dalka wax u qabtaan hase yaatee socdaalku ma yahay mid siyaasadda ka maran iyo sidoo kalena ma yahay mid waxtar u leh gobolada uu maray sidoo kalena waa intee ayuu leeyahay waxqabadka iyo mashaariicda ka socda deegaamada gobolada bari sida Ceerigaabo iyo magaalada Laascaanood oo wafdigu soo maray marka ugu horeysa balan ani daawadsiyo laba muuqaal oo madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo oo isagu ka hadlaya magaalada Laascaanood oo 27kii bishiina soo dhaaftay isaga iyo wafdigiisuba halkaasi tageen isla markaasina ay ka sameeyeen ballanqaadyo sidoo kalena waxaa daawan doontaan isagoo ka hadlaya magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag aynu eegno muuqaalkaasi kadibna waxaa barnaamijkan isku soo noqon doona halkan ila fadhiya oo marka ugu horeysa idin sheegi doona martidayda telefishinka barnaamijkan Kalson TV waa dhinaca midigta waxa iga xiga waa Faarax علي عقال oo isagu ah qurbajooga ka soo jeeda gobolka Sanaag isla markaasina aan qurbajooga kaliya ahayn ee qulubtiisu ay jirto dhinaca dalka isla markaasina waxyaabo fara badan oo dalka siiba wadada Ceerigaabo uu ka qayb qaatay qayb lixaad kana mid ahaa gudidii qaran ururinta ee gobolka hase yaatee dareenkiisu waxa uu qabaa mid ka duwan baday tahay qabaan dhinaca xukuumadda oo sheegay in uu jiro waxyaabo uu doonayo in uu tilmaamo in wax laga qabto jawaabaha noocaana waxa laga yaabaa waxa bixin kara afayeenka xisbiga kulmiye waa Maxamed Cabdi Rambe oo isagu ah afayeenka xisbiga kulmiye ee dalka UK dhamaantiin waxaad ku soo dhawaada barnaamijka wad ma saddex sidii aan sheegay waxaynu marka hore daawan doonaa laba muuqaal oo Axmed Xusiraayo oo gobolka Sanaag ah iyo gobolka maxaa ku raayay Sool labadiina labada gobolba ka soo kala jeedaan in fact haddaan boo Maxamed runtii sheegay yara kabtane Sool ka soo jooga laakiin soo wasaasanta Maxamed oo ninka soo jeeda gobolka Sool laakiin bariyaan waxa iska jira xuduud cusub oo la dilaaciyo oo ay maqlo gobollo cusub oo ka dhex dilaacay laakiin kulley waa gobolka Sool isagoo xilligii uu dhashay gobolka Sool way adiguna waxa ka soo jeedaa sidaan sheegay gobolka Ceerigaabo Sanaag ba ka soo jeedaa magaalada degmada Ceerigaabo ay ka soo jeedaa waa tahay barnaamijka hadda ayaanu bilaabaynaa haddii alla yidhaahdo waxa barnaamijka aynu mar dhow tusi doonaa dadka muuqaalada laba muuqaal oo Axmed Maxamed Sinaayo oo Laascaanood iyo Ceerigaabo ahaa dadka inta badan madaxweynaha khudbadiisa raad gura aan lafteedu dadkaasaan runtii ka mid ahayna naaqasho maadaama madaxweyne waxa loo doortay inuu yahay inuu dalka wax u qabto sidoo kalena la xisaabtamo waxa uu had iyo goor madaxweynuhu sheegaa hadallo isku mid ah oo ah waxqabadka xukuumaddiisa sida ay diyaar u tahay iyo sida wax uga qabanayaan baahiyaha ka jira laakiin gobolada bariga Soomaaliland waxa la sheegay in kuwa aad uga dambeeya dhinaca galbeedka duruufo kastaabaha ka dambeysiyeen su'aasha ugu horeysa aan dibadin waxa tahay socdaalka madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo ee gobolada bari leeyahay mid waxtar u leh deegaamada gobolada bari ee uu soo marayo isagoo mid aan waxtarkiisa aan lahayn haddaan ku bilaabo marka ugu horeysa jawaabtu ay noo dambeysay adiga oo gobolka soo jeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت وان إني سلامية عبد الله هذا برنامج كسو دبردي وأيو عزيمتنا نوصل في الصي ولكن محمد برنامج كنا قرا قريب قليا نوا سلامية وحكوا سلام ودري أرنتي
dadweynaha reer Somaliland oo runtii rajeynayo inay barnaamijkan ay daawanayaan siba qolyaha iga bariga reer Sanaag magaalada Cerigaba way wasalaam gobolka oo dhan way haddaan u soo noqdo su'aasha aad weydiisay oo ahayd socdaalkan madaxweynaha uu u kicitay gobolada Sool maxaa kale fiir xaflaya waxtar ma u leeyahay su'aashaas u leeyahay deegaanada gobolada bari deegaanada runtii the different interpretation political interpretation way leedahay that reality-gana meel buu yaalaa madaxweynuhu markuu socdaalka ku mareeyay gobolada ama ha noqoto Laascaanood ama ha noqoto halkuu socdaalka ku dambeysay yahay Cerigaba markuu dadweynihii la hadlayay gobolada la hadlayay magaalooyinka la hadlayay madaxweynuhu dama sheegin wax barnaamij ah oo uu waday waqtigaas oo ama ka hirgelaya ama uu keenay gobolada inay ka dhacaan runtii markii lala yeeshay kulamo la yeeshay madaxweynaha dadkii kolba xilalka ka hayay goboladaas ama ha noqdeen dadkii kala deegaanka madax dhaqameed wax doonaan ma noqdeen wax program oo waqtigaa u sheegay runtii ma jirin wax program oo ballanqaad uu kaga soo noqdayna runtii ma jirin haddaad xagga siyaasad ahaan ka eegtidna waxay u muuqatay inay ahayd كابتن كودره تهريبة سياسات. أنا فرت قيبتها دنبوا سواش قيبتي دنبوا دون مسوق هذا لكن بالمحمد ودي أفهين كيف حسب قتلنا ذلك هي كلمية طبعا الحسب ونده سياسة الدولة وشقية محمد. حقيقي. يتاجسي. سواش هديهم كوبسوا دوية هاي واحترموا لي قبل هذا صعد كوفتي من حميد أحمد محمد سيرين. aad iyo aad baad umahadsantihiin walaalkay Faarax waan soo dhaweynay Cabdullaahi aad iyo aad baad ugu mahadsantahay barnaamijkan aad ugu martiqaaday waxaan u aaminsanahay waa waajibaadka koowaad ee madaxweynaha ama mas'uul umadeed saaran inuu mar walba ka warhayo ummadaas uu hogaaminayo waxa ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda halka uu joogo iyo sida ay tahay kanimahinkii ugu horeeyay madaxweynuhu uu ku tagay gobolada bari laakiin waxaanu oran karnaa waa madaxweynihii ugu socodka badnaa ee gobolada bari taga inta madaxweynayaal ina soo maray inagoo madaxweyne kastaba uu waqtigiisa iyo waayihiisa uu la noolaa waqtigii uu jiraynaan madaxweynayaashii hore aynaan dhaliilayn laakiin waa madaxweynuhu ugu badnaa waxaynu ogaan January sanadkan kii uu ka bilaabay socdaalka weynaaye badiya berri loo bixiyay inta badan uu ku dulmaray gobolada bariga haddii aan usoo noqdo su-aashii ahayd oo muxuu daaranaa socodkani ama waxtar ma u leeyahay dabcan وانا امسنا انه waxtaru leeyahay waa ta koowaad markii hore waxaan aaminsanahay inuu soo nooleynayo kalsoonida shacabka ayna og yihiin xukuumadoodii mar walba dib iyo dheefba in laga warhayo inay jirto meesha jirta waxa uu kor u qaadayaa la xisaabtanka mas'uuliyiinta xukunka haya waayo waxaad arkaysaa wasiirro fara badan oo howlo muhiim ah hayay oo madaxweynaha la socday iyadoo bariga hore ay jireen mashaariic fara badan oo bariga hore madaxweynuhu uu soo dhagax dhigay iminkana ay tahay inuu ku soo kormeero maxaa ka qabsoomay maxaa ka qabsoon waayay maxayna hor yaalo challenge oo hor yimi oo u baahan inaynu dib uga fakaro waxa soo dhanba ayay u tahay in dib loo eego waa ta saddexaad waxaan aaminsanahay inay chance u siinayso dadka deegaanada fursad u siinayso dadka deegaanada degani inay toos iyagu iyadaan madaxweynaha waraaq loo keenayn ama wax loo keenayn inuu madax dhaqameedkeedii iyo dadkeedii haldoorka ahaa uu la kulmi karayo wasiiradoo joogana ay soo gudbin karayaan baahidoodii iyo cabashadoodii marka waxaan aaminsanahay inay dhinacyo fara badan ay waxtar aad iyo aad uga weyn ay u lahayd way Faarax waxa uu noo sheegay Maxamed oo xisbigii kulmiya Maxamed wuxuu noo sheegay in sidaad wad maqlayso sheegay adiguna waxaad sidii wax qorshe iyo wax mashaariic ma jirin su'aashan laba qaybood buu kala baxayso qaybtii wad mar yara gali gaadhay dambe ahayd siyaasadda inuu taa u soo noqonayna waa maxay waxaad doonayseen madaatiin gobolada bari ee aad دون سمع الحين يدين شيء هذا هو ما يشرين هو ما حيمر سؤال تصير فرفرت بالله صوبت كوصل يسي إنما الحين وحبا أنا وسنين قبل هذا بريقة الله كوصل يسي هرتا صدقت هيبة ده هرتا قبل هذا نيو قيبتي وطنك صدقت هيو حكى لبرنا وردات واي defining factor كي لبضة الدخول مسافة حال واي dalka deyntiisa badina dalka baaxadiisa way gobolka sanaga oo kale waa gobolka ugu baaxadda weyn Somaliland waa complex gobol markay noqoto deegaan ha noqoto haddaad comparison u samaysid isbarbar waxaanu yar faa'iideysana dadka wadankii jooga in balha qurba joognimada ka yareebo haddaad la barbar dhigtid gobolada kale ee dalka waaweyn oo kale markay noqoto horumarkii diplomatka la geliyay ama
waxyaabaha la geliyey gobolada dee dowladdu ay ka mashaariicda ay ka fulisay aad iyo aad buu gobolkani inkastoo labada gobol ay sira dhaamaan hadda waxaad moodaa sool labadii sano ugu dambeysay in waxyaaba badan dowladdu ay toos ah ay runtii ay ka fulisay markay noqoto daryeelka bulshada caafimaadkii waxbarashadii haddaan tusaale yar kaa siiyo inaad soo geli karto jaamacadda sanaag waa gobolka sanaag oo dhan bay jaamacad u tahay jaamacaddaas dhismaheedii iyo dhaqaalaha lagu fuliyo macallimiintooda bugaagtooda waxoo dhami waxaa kafaalo qaatay oo bixiya organisation la yidhahdo Sanaag Development Organisation oo qurbo jooga ayaa bixisa oo reer Sanaag ayaa bixisa waxaan u malaynayaa markii madaxweynuhu soo maray sida Maxamed sheegay socdaalkiisii hore inuu wax u dhigmaa adigu aan u malaynayaa ilaa $5 ay ka yar tahay inuu waqtigaa yari waan siin doonaa jaamacadda ama u tarbi doonaa waxyaabaha isku xidhmada waxa weeyaan jaamacaddina waa jaamacad ma aha private ma aha waa jaamacad uu leeyahay Somaliland ay leedahay si ardayda dee dalka ka soo baxaysa ay wax ugu bartaan oo dabeetana cilmiga ay barteen ay dib u geliyaan dalkii taasi waa tusaalaha labaad waxa weeyaan haddaan ku tuso cusbitaalka gobolka degmada uu ku yaala Cergaabo buu ku yaala laakiinse waa cusbitaalkii gobolka oo dhan gobolkana waa 5 degmo ka kooban yahay qofkii xanuunsanaya maxaan ku radaa qofka dumarku markay umalayso marlayso waa meesha kaliya dhakhtar loo tago waa halkaa waxaan doonayaa ummadda reer Somaliland iyo intaan ogeyn inaan la wadaago waan u sheego markaan baaritaan ku sameeyay dadkii wareysanay inuu joogo dhakhtar kaliya dhakhtarkaasina uu ku shaqeeyo volunteers maxamed noo ka jawaabi doonaa xogaalu yahay hadduu xogaalu yahay maxamed markaan ina dhamayste uu dhakhtarkaasi uu ku shaqeeyo volunteer oo lacag qaadan waxa jira inaad dooda dib u geli doontaay mashaariicda qaranka ah ee waa inuu soo noqon qodobada marka yani gobolkani waxay ku tusaysaa xaggii waxbarashada caafimaadkii waa necessity waa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee bulshada kaalmadeedii ee dawladda ay fuliso inuu marka loo eego gobolada kale oo dhan runtii aad uga dambeeyo way maxamed arrinta maxaad kaga jawaabi lahaydeen maxamed waxa uu Faarax inoo sheegay Faarax sidoo waa nin gobolkana xogaal waa laga yaabay inaan anigu waxyaabo fara badan in detail aan u sii ogeyn oo kulleeyay qofka markuu meesha uu ka soo joogay uu aad u sii ogaan karayo laakiin waxa weeyaan wax inaga qarsoon waxna waxa weeyaan wax inoo muuqdaa xukuumadda mashaariic waa weyn ay ka filisay gobolka ma fahantahay ugu weynaato mashruucan Somaliland oo dhan wadnihiisa degan ee mashruuca wadada oo madaxweynuhuna aan oran karaa aad iyo aad bay wadnihiisa ugu dhow yihiin xiriirka uu leeyahay isaga iyo wadadaas ay wada leeyihiin oo in badan uu ka soo joogtay arrinta isbitaalka iyo caafimaadka waxaan u malaynayaa kulley waxaynu markaynu eegayno inaynu doonayno inaynu waxaynu eegaynaa halkuu markii hore taagnaa markaan dowladda xukuumaddan ay tahay xaguu imika uu taagan yahay xagee gobolka intiisa kale hadday MCH noqoto hadday noqoto imika halkan waxaan ku hayaa waxa xarumihii kor loo qaaday intay xukuumaddan ay joogtay ay ka mid tahay xarumaha caafimaadka ee Yufle Godma Biyacas Mayd iyo Hulul intaasoo dhanba intii ay horey uga marka wax lagu soo kordhiyay adeeg caafimaad kor u kacay ama dhismayaal ha noqoto ama police station ha noqotee waxay ku jireen buugan ay ku qoran yihiin oo wax qabadkii 2010 ilaa 2010 ayaan imika halkan 2010 laba sanadii hore ugu horeeyay labada sano ugu horeeyay goobihii aadka wax looga qabtay ay ka mid ahaayeen imika maalintii hore madaxweynuhu tagaynaa haddaad aragtay labada jeerba wuu booqday January markuu uu halkaa marayay iyo maanta wuu noqday waxaadna arki karaysaa farqiga u dhexeeya labadaa jeer waayo maalinta hore waxaa meel quful ku xidhan yahay laakiin maanta waxaynu arkaynay laboratory iyo shaqaynaya klibkan madaxweynaha ku jirtaan waynu arki doonaa dhakhaatiirtii intay doonaan iyo tiradooda ma hayo kulley dad dhakhaatiir sheeganayo meesha taagan waynu arkaynay dadkii waadhka jiifay oo sariirihii yaalaan oo la jiifo uu functioning uu yahay Faarax markaa miidan way arkaynaa klibkan aad haysaan ee madaxweynaha markuu dhakhtarka tagay ayay ku jiraan marka waxaan aaminsanahay in
dadka wax fara badan oo madaxweynuhu ku kormeerayay ka mid ahaayeen wuxuu markii hore uu ishiisa uu ku soo arkay wax ka duwan inuu maanta soo arko uu gobolka u tagay tamaad ka jawaab buug soo dhigay wuxuu yiri way buugga dee wuu qori karnaa labada kun iyo 12 xaqiiqdiina waa la hayaa anu facts badan baan hayaa runtii oo ka soo ururiyay waliba sourcekeedu ama xogteedu ay ka timi hadda siba wasaaradda qorsheynta oo kale xukuumadda kulmiye caafimaadka laftigeeda oo deeqda ka imanaysay Somaliland Development Fund duqan lagu caawiyo Somaliland Funds inkastoo aynu aragnay clipkaasi inuu jiro Maxamedow aynu aragnay madaxweynaha jooga laakiinse marka waxa caado ah oo gobolka sida warkiisa laga sheegay madaxii markay imanayso in meesha la meydho oo la hagaajiyo dabatana ay arkaan tusaale ku siinaya ka dhacday cabiro marka tusaale ku tusaya ka dhacay ku siinaya gobol ka dhacay waqtigood waa runtii waa saad waa wax murugo leh waxa dhacday nin askari ah oo ka tirsan ciidanka qaranka Somaliland oo kabtan ahaa ayaa gacan ka xadaray ku dishay isagu laftiisa ciidanka ahaa ilaahay ha u naxariisto waxa dhacday dhaawacu gacmaha ayay kaga dhacay dhakhtarka markii la geeyay waxa lagu waayay dhakhtarka dawadii dhiig joojinta lagu sameeyay ninkaasi ilaahay baa hidisa qoray laakiinse dawadii dhiig joojinta lagu sameeyay lahaa iyo antibiotic ayay dhakhtarka laga waayay iyadoo halka tahay ayaa wax loo qoondeeyay mashruucan bishii saddexaad ka soo baxay SDF aan ku dhameeyay Somaliland Development Fund lacag gaadhaysa ilaa 2 milyan ma the fact bay la socotaa 2 milyan in la geliyo waxtarkii su'aasha dambe tii siyaasadda development fund ka waxaan maleynaa su'aasha dambe aheeda mar dambe weyn development fund waa soo qaadatay laakiin waa dambe soo qaadanayno aad ma sidii maxamed laakiin labadiina wax isla taagantiin waxna waa la qabtay iyo waxna way dhimayeen labadaba mar walba waa isla taagantiin mar walba isla qoro baahida bini'aadamku ma dhamaato baahi fara badan baa goboladan bariga mar walba ayaa taalay horena u taalay imikana taalaa una malayn maayo 10 sano soo socday 20 sano soo socdaba halka aynu doonaynaa inaynu gaarsiinayno laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inaynu fadhino hadaynu dhaqaaqayno intuu doonaba itaalkeenu hayno dhigo laakiin xukuumad dadaalaysa og dadkeedu waxa ay qabaan u hagar baxaysa inay meesha joogto hadaba question ku wuxuu yahay Cabdullaahi oo fiiro boobe iyadoo Maxamed soo sheegay xukuumaddu dadaalaysa adigu waxa introduction kiyaba marka dadka ay baraysa waxaad ku boodeen inuu sanaag ahay xogaa loo tahay sanaag inay development noqoto oo horumarto ciidiga jecel ma jirto waanu soo shaqeeyay wadadan runtii dawladda ku amaanan tahay madaxweynaha ku amaanay initiative-ka uu qaatay waa mid loo og yahay waa ka soo shaqeeyay qaran runteedii ilaa sanadii dheeraad nolosheeda Ingiriiska aan joogo ayaan u dedicate gareeyay inaan u shaqeeyo waxyaabahan jira adeegga bulshada waxa weeyaan haddii wada la dhisay oo ummadeedina ay dib haysato waana adeeg caafimaad haysan adeeg waxbarasho haysan dee mashaariicdin baa wadada maraysa marka weeyaan wadada dawladdu hadda daasho baahiduna ma dhamato way qodob baa jira sidaad qodobada ku haysataan ah waxtarkii baynu ka hadlaynay waxtar ma u leeyahay waan isla labada dhan hadba dhinacaynu intii dadweynaha daawanayaan aniguna dee wala socdaan waliba waxa si fiican uga jawaabi karaa dadka deegaanka ayaa aad ula socda iyagoo fursadna siin doona haddii aan laakiin su'aasha qaybteeda dambe dib aan u yar dhiganahay dhinaca siyaasadda laakiin waxaan doonayaa bal gashaan heerkee ayuu leeyahay wax qabadka xukuumadda ee goboladan barigeenu ka sheekaynayna waxaan u ogsoonahay in dhinaca galbeedka waqtiga ay jireen cashuur dheeraad laga qaadi jiray oo boqolkiiba 2 inay ahayd maana hadda sixi kartaa hadda aanay ahayd 2% boqolkiiba 2 laga goyn jiray dadka gobolada galbeedka ku nool si loo caawiyo oo wax loogu qabto adeegyada iyo maamulka dawladda ee gobolada bariga taana wax badan baa daldalola ka muuqan jiray xilligii dawladii hore marka intan dawladda jirtay taasi meesha ka baxday oo iyadu ma jirto boqolkiiba 2 la guri jiray marka san xogalay wala jooji dawladda ay riyaalaad hore u joojisay laakiin heerkee ayuu leeyahay hadda wax qabadka xukuumadda haddaan waliba adigu aad jawaabteeda bal Maxamedow maxaad dadka saarto ka fada bariga markaynu leenahay waxaan malaynayaa nimbayn buu yaqaanaa bariga waxaynu ka hadlaynaa adigu halkaad ka bilaabaysaa bariga waa su'aal wanaagsan laakiin kulley waxaynu culays saaraynaa deegaamada uu madaxweynuhu cagta mariyo ee ugu muhiimsanaya marka leeyahay bari uu qabtay markuu leeyahay waxaynu aragnay inuu ceera gaaba tagay waxaynu aragnay inuu ceelaf weyn tagay waxaynu aragnay khadka dariiqu marayo la sacaanood marka wuxuu burco xaga ka xiga wixii adigu burco way ku jirtaa lafteeda bariga waa halkii dayaxo dhulkan tagay waa ka yiri abwaanka Allah u naxariistay Faisal Umar Steeg marka kaba soo qaado dayaxa oo galbeed aan ku xisaabtanay bariga wax qabadku intuu leeyahay dad maanta bal aynu ka faa'iido socdaalka madaxweynaha doonaya ogaana bal waxtarkiisa ayuu yahay horta waa kii walaalkay sheego wadanka badankiisu waa kii sheegay xagga bariga ayuu xigaa waxaan oran kartaa boqolkiiba 75
ayaa burciya wixii ka shisheeya waddankeenu uu yahay marka waxqabadka laba dhinac baynu kala qaaday ay aniga ila tahay mid waxa weeyaan kaa ijtimaaciga ah ee waddanka intiisa kale ay la qabaan oo haddii waxbarashadii free laga dhigay dee freegi way la wadaagayaan haddii caafimaad wixii la helo dee adeega bulshada waxna waxa weeyaan wax qorshayaal iyaga u gaara oo lagu tayeynaya ama maamulka ha ahaato ama deegaamada ha ahaato waxaan aaminsanahay inay horta laba mashruucoo aada u waaweyni inay markii hore ay ka fuleeyeen goboladaasi marka goboladaasoo meelaad ka horeysa ilaa burciya wixii xagga bariga ka sii ilaa cirgaab ha burciya wixii bariga ilaa sool saddexda gobol ee inta badan bariga inta badan saddex geeska inay horta waa mid wuxuu ahaa in laga bedelay lacagtii kiimbaartay oo goboladaasi dhaqaalahooda aad iyo aad ula hadhay oo xukuumaddani markii ay timi ugu horreysay waxyaabihii ay qadatay sanadkii ugu horreeyaba sanadkii 2011 ay ka mid ahaayeen si dhaqaalaha waddanku uu noqdo mid isla socda waynaga ogeenoo tallaabo aad iyo aad u weyn oo iminka dhaqaalihii waddankeenu inuu isla falgalay ayaa muuqato dee lacag shilin somaliland uu meel walba uu ka socdo waxa labaad aadka isaguna u weyn waxa weeyaan wadadan iminka socota ee Ceerigaabo oo dadka bariga taawanigi isaga soo mashruuc weyn oo ka mid ah heer kuleeyahay waayo waxa uu saameynayaa inta wadadu martoo dhan wuxuu ku soo kordhinayaa noloshooda oo isku xidhankii baa furo dhaqaalaha meesha ka bilaabmaya wadda marayso waxyaabo fara badan baa meesha ka soo baxaya dhinaca kale gobolkan Sool oo kale waxaad moodaa nabadgelyadiisa hadday tahay xagga nabadgelyada ay tahay hadday xagga dhaqaalaha iyo kobaciisaba ay tahayba inay wax fara badan ay iska bedeleen oo maanta gobolkii uu soo diirayo oo dareemaysa inay dhaqaalihiisa iyo bulshadii inuu ku soo xidhmay Somaliland inteeda kale ayaa ka muuqata marka waxaan aaminsanahay inay labada mashruuc ay ahaayeen laba mashruuc aad u waaweyn oo تمام كي جولة horta anigu sida maxamed dhigay si kala ka eegi lahaa horta goboladani marka la israaciyo Sool iyo Sanaag baan ugu oran karaa waa gobolada bariga kama wada togdheer iska dhigal ka kama reebin togdheer waa mainland way togdheer waa geographic la duuduqiyay wasi hawdeedu yani systematically dalkan system ahaan goboladan qaabka uu yaalo siyaasadda ay noqoto dhaqaalaha ay noqoto waxa loo dhaqmaa habab ka duwan hababka gobolada kale Somaliland loo dhaqmo tusaale koow marka dawladda dhexe ay dejinayso miisaaniyadda gobolada gobolka Sool iyo Sanaag waa labada gobol kaliya ee aan lahayn guddi dabagal ku samaysa miisaaniyadda gobolada kaliya way nooc doonada transparency marka wad garaysa corruption xisaabtan ma jiro taas waa qodobka labaad mashaariic dawladeed baa jirta oo dawladdu ay fuliso iyadu tusaale ahaan markii hore dadka joogtay waan hadda bilaabaya mashruuc la yiraahdo Somaliland Development Fund oo u adeega si uu kobciyo dhaqaalaha bulshada caafimaadka waxa la wixii horumar geynaya dalka mar adag ku haystay hadaynu yar faa'iidina dadkeena daawanaya mashruuc ayaa iska leh mashruuc abalada marka mashruuc dawliga mashruuc jeeb sheey lacagtiisa mashruuc jeeb sheey lacag ka soo baxda waxa initiative kale ka timid markii hore bilaabay dawladda Ingiriiska oo David organization lacag soo bixiyo iyo Denmark dabeetana waxa ku darsantay Norway international development adigu ila afar marka waa صندوق عالمي marka ma mid cashuurtii dalka la gelinaya way developmentkii adduunyadu ay ugu tala gashay in dalka Soomaaliland lagu horumariyo dhinac walba waxa loo qoondeeyay hadda aragtid sooskana soo qaaday su'aasheeda dambe ahayd si siman ma marka taa waxaad ka jawaabaysaa heerka aan dib soo noqdo waxa jirtay iyada laftigeeda markay noqoto taasi waa qaybtii dhaqaalaha iyo habkan uu uga harsan yahay la macaamilka gobolada kale markay noqoto labadan gobol waxaad moodaa almost in dawlad kale ay dhex fadhido dawladda dhexe dalka iyo labadii gobol oo kala dhaxayso marka deeqahan iyo horumarkan gaaraya aanay goboladii runtii aanay mararka qood aanay deemaan kale aanay dhaafin runtii taa waxa kugu sii daran inta dawladda kulmiye ay maamulka haysay gobolka Sanaag ama Sanaag markay naqlo beelooyin badan baa degan waa complexity wasaynu baaxadiisa oo bulshada degan bulshada aad badan reero badan baa degan wala 8 beelood baa degta waqtigan xaadirka mada aha waa facts oo sooskeedii baan keenaya ilaa 24 jago oo
isuduwe ilaa iyo isuduwe iyo agaasime leh ayaa hal beel gacanta ku haysa oo nooc ma markaa dad adigoon sheegayn beesha in adiga jeedaa ma mid deegaanka u badan tahay markaa maamulkii gobolkaba way hal beel baa maamulkiisii haysa waxyaabaha markaad arkaysaan hadda aynu arkayna marka madaxweynuhu uu tegey dhakhtarka la furay labrootiga la geliyey blaaga la geliyey la daaray la geliyey soo ma arag waxani waa film matalaya weeyaan the reality way ka fog tahay dadka meesha joogaana tusaale aan siiyay u malan maayo tusaale ka badan inaad u baahan tahay qof dalka maamulkiisa way markaas mid taa ka jawaabi lahayd inta yaraan ku darsadaya horta waan ognahay qarankeenu sida habka uu u shaqeeyo ma ogi guddi gobollo oo miisaaniyadaha gobollada dabagala meelay ka dhisan yihiin baarlamaanku wuxuu Somaliland oo dhan buu shaqeeyaa baarlamaan gobollo u shaqeeya ma jiraan waa kay baarlamaanka guddida u qaabilsan gobolka مرودي شيء برلمانك تما هي يرسح اوكي صح ميزانيدا wax la keenaa barlamaanka la keenaa wasiirka maaliyadda keenaa waxa leeyihiin sub committees ama guddi hoosaad bay leeyihiin guddi hoosaadkaasi qaarkood waxay dabagal ku sameeyaan dhaqaalaha waxay ku sameeyaan arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxa jirta guddiyo marka guddi hoosaada oo eega miisaaniyadda sanadkii dawladda dhexe ay dib ugu celinayso gobolada oo dalka oo dhan taadaba ka gudubna laakiin ma jirto mid gobollo u khaasa goboladaas kala mid yihiin ma jirto guddi aynu oranayna gobol hebel bay u khaasiyeen oo miisaaniyadda gobolka galaysa ayaa jirta weynaynu saxnaayno kala tan maxaad kaga jawaabi lahayd beel kaliya gacanta ku haysayda in beelayna habeen yiri Somaliland taan isla wada qirnaa anigu ma aaminsanay oo ku salaysan yahay golaha guursiga ku salaysan yahay anigu imika sourceskiina ma hayo ma oranayo inta beel heblaayana intaas hor joogto beel heblaayana intaas hor joogsan waana ka han weynaa in la yiraahdo ma ogtahay beel heblaayo waayo aynu u hadalno sidan ay tahay dadkani hawsha ay qabanayaan ma ku haboon yihiin laakiin inaan mar walba inaan oranay ninkani reer hebel inaan maskaxdayna inaan ka dhex buuxin laakiin anigu waxaan aaminsanahay haday dadkani ay yihiin dad reer Soomaaliland oo gobolka u dhashay shaqaynayaan hawshoodii qabanayaan in lagu ixtiraamo ayna ahayn haddii imika kuwani ay joogaan laga yaabo xilligii dawladda daahir yaalaba inuu reer kale wada joogay ma fahantay inaynu inagu dhalinyarada beenahay aqoonyahankii beenahay waynu ka saaraa dhinaca qabyaalada wax walba aynu dhakada ka saareen dhinaca wanaagsan aynu dhinaca ka saareen waxaan jeclaan lahaa inaad tiraahdo hebelo wasaaradda haya shaqadaas ma qaban karayo awoodeedii ma leh khibradeedii ma leh waayo aragnimadeedii ma leh xagga aynu xagga u saarno sharciga taadu waqtiga gaar faysan yes laga yaabay walaalkay dhinacu ka eegay anigu ma garanayo gobolka percentage-ka beeshana sheegaysa percentage-ka ka degan tahay gobolka waynta ma garan karayo maxaa qodaysaa wixii anigu waan ka xishoodo inaan dul maraa jeclaaday sababtu maxamed aan ku dhameeyo wad mid hadlaysa walaalaana yeerin waqtigan wali ka faysan qodobka hore uga baxna marka leeyahay dalku saamiqays baa lagu sameeyay beelayna waxaynu wax wada samaystay system iyo democratic baan samaysanay inaynu si equal distribution of wealth iyo dhaqaalihii maamulkii in si sharaf ku jirto haddii gobol dhan oo 8 dawlad ay degaan beel kale loo dhiibo maamulkeedii waxay khalkhal gelin kartaa xitaa nabadii bay gelin kartaa gobolka dadkani dhammaan walaal waan ku dhageystay markii aan magaalada ka baxay taas ma dhamanaya marka inaynu ogaano inay leedahay mas'uuliyad gaar ah leedahay in dadkii marka shaqo loo diriyo Soomaaliya dadku iska wada arkaan muraad ay noqoto si kalsoonidii u buuxsanto wax qabadkii ma ku taageersan walaalkay waana miisanahay inay dadka reer Soomaaliland wax wada qaybsadaan oo mar walba wax la wada yeesho laakiin marka arrintan aynu eegayno si qoto dheer weynaynu eegnaa maaha inaynu naano liis kaliya meesha lagaga tagay waxyaabo fara badan baa walaal soo galay imsa hayadood baa meesha ka jira haddii la yidhahdo 20 bay degan yihiin 150 hayadood ka jiraan waatay maxamed aan kusii gudubnaa dood maasantay labadiina dood waa dood wanaagsan noo furan tahay waa xabaha xaqiiqada ku salaysan Soomaaliland ka hadalno weeyaan maaha inaynu barnaamij yar oo duuduuban oo aynu isku macaanayno ka sheegno fikirka noocan ina kulay ugu jira kan adigu sheegaysa leedahay in laga gudbaano waa mid meesha isugu jira laakiin aan u gudubno dhinacan qodobkan madaxweynaha Socdaalkiisa wuxuu ku soo beegmay xilli xasaasi oo dalka si xataa muddadii sharciga ahayd ee la doortay ee ummaddu codka siisay 5 sanadood bay ku eekayd cilad wixii timaado waa halkeeda laakiin dad dastuurku wuxuu sheegay madaxweynuhu awood ahayn karayo muddo 5 sanadood kaliya socdaalkani ma ka maqnaa ma ka maran yahay siyaasad hadaba socdaalka madaxweynuhu dadka jawaabtay oo noo jawaabeen faaraxin kastoo xusbina ahayno laakiin haddana waad ka jawaabi kartaa laba dhinac baan u kala qaadaya anigu su'aasha midna waxa weeyaan siyaasadda
gudaheena iyo waxaynu inagu aynu isleenahay midna waa mid ka yara baxsano haddaad maanta adeegtid BBC daad gashidaad Somaliland maapkeeda adeegtid qayb dhan baa waxa ku taala wasaaradda arrimaha dibadda u taala inay ka daba tagtay ama ka daba tagtay waddankana policy buu leeyahay Kenya policy buu leeyahay iyagay u taala waxyaabo fara badan baa meesha isirtiya inaynu arkayna khariirad badan oo ay ku taalo meel la isku haysta inay gobolada qaar ay yihiin waxaan aaminsanahay si taa loo masaxo joogitaanka madaxweynuhu uu gobolada ku noqnoqonaya inay muhiim u tahay adduunka tusayso meeshan inay Somaliland tahay taasna ay hoosta ka xariirayso waqtiga awgeed baan maxamed ku soo raadin point fiican samaysay waa waqti yani waa miisa because xasaasiyadda ka jirta gobolada geel madaxweynuhu ku raad bataa wax loo baahan yahay maxamed aniga lafteedu su'aal baan kala ka weydiin maadaama xisbigana tahay laftaadu dee aad ka siira mas'uuliyad dheeraad ku sii saarantay way anigu horta waxaan doonayaa declare ka dhigo anigu halka ma joogo inaan xisbi runtii ku matalo laakiin si qof shakhsi u dhashay muwaadin inaan aragtideeda runtii aan aadna waan u follow gareeyaa ama waan la socdaa arrimaha isbedelaya Somaliland ay runtii maanta waqti ku sugan tahay waxaa runtii jirta waqti xasaasi ahayd waxaan qabay anigu socdaalkan markaan dhinac walba ka eegay waxaan arkayay inay ahayd siyaasad tahriibid dowladdu waxay ka tahriibtay pressure cookie ka jiray ama arankii jiray muddadii waqtiga madaxweynaha ka dhamaatay waxaan filayaa maalintii laascaanood ka qubeenayay inay ku beegnay 7 bisha maalintii xilkii waqtiga madaxweynuhu ka dhamaanayay ta kale pressure ka jiray Hargeysa laftigeeda ilaa waxaan si partial oo maxamed dhexaad u eego waddankeenu qayn u leeyahay dastuur u leeyahay waynu dhaafnay inaynu nahno dowlad emergency aanu samaynayo iyo futuriya fitada ummadda dadka banaadka been loo sheego dowladdana mas'uuliyad baa saaran inay political compromise ay keenaan meeshan mas'uuliyad baa saaran inay tanaasul kelmaddan sax tanaasul ay sameeyaan ta kale waxa jirtay anigu ilaa hadda maskaxdeeda aan qaadan waayay weekii madaxweynaha Soomaaliya ku jiray laba shir oo muhiim ah ayaa ka dhacay East Africa mid Nairobi ka dhacay midna Addis Ababa ka dhacay Addis Ababa waxa joogay madaxweynihii Mareykanka Barack Obama oo la shirayay African Unionki 4 dal ayaa dad maxamed u soo dirsanayay waxaan si daraa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ay shaqadiisu ahayd inuu joog qayb galo inuu ciyaargaaba joogay runtii qof walbo Somalilanders uu isweydiinayo dowladdan important kuma ahamiya muhiim kuma ahamiya inay doonaan marka la soo koobo marka la ahayd in loo raadiyo way farxad ma santa waqtigan doonay ka faa'iido marka su'aasha haddaan soo qaataba ereyga sidoo dhigay waxay ahayd tahriib lala tahriibiyay madaxweynaha siyaasad Hargeysa laga baxsanayay si xaaladii oo geynida siyaasad midaynu hoosta ka xiriirnaa Cabdullaahi yaa wanaagsan oo su'aashaad xitaa waxaad moodaysay inaad legitimacy-ga madaxweynaha imika aad xogaa question markaad yara gelinaysaa muddadii loo doortay muddadii loo doortay way dhamaatay laakiin madaxweynaha laakiin hay'ad institution oo constitution oo waddanka xaq u leeyahay inay wax kordhiso ayaa u kordhisay marka waajibaadkiisa yaa isku haysan karaya maxamed meel isku haysan tahay yaa isku haysan karaya xisbiyadii meel isku haysan dowladda walaal laba aynu kala saaro waxna waa xisbiyo weeyaan waxna waxa weeyaan wax hay'adani ay xaq u leedahay iyadu 5 jeer hore kordhisay ma baantay xaq iyo waajib bay u leedahay hay'adani golaha guurtida inay wax kordhiyaan muddada ay iyagu u arkaan waliba qodobku ma odhanayo xisbiyada la soo heshiiyay ma odhanayo muddada ay u arkaan in lagaga bixi karayo xaaladaha marka tahay marka xaaladaha sharci ahaan hay'adani way kordhin kartaa waa dastuuri madaxweynahana way u kordhin kartaa horena way ugu kordhiday meesha waxa la isku haystaa waxa weeyaan the legality sharcigan ay ugu kordhisay ma yahay sharci waafaqsan dastuurkii dalka jamhuuriyadda sharciga dastuurku waxa walaal mar walba horta waa inaan fahnaayo dadka sharci yaqaanadiina si wax u fasiraan dadkan sharciga aan dhiganin si kale iyana ay u arkaan qodob sharciyo dastuuriya waxa tafsiirkiisa ka qayb qaato maalintii ugu horeysay ee uu taagnaa sidii loola dhaqmay ayuu ku tafsiirnayaa laakiin mar walbaba waayo qodobkani mar walbaba markii ugu horeysay lagu kordhinayay inay dhulka dhulgariir kama dhicin boqolkiiba 95 waddankeena lama haysan laakiin xaalad jirtay ayaa loogu kordhiyay oo la mid ah similar tan maanta laakiin maxamed dowladda lafteedu marka iyada lafteeda xisbigeena iyo wax ka soo baxay su'aashan ka weydiiyay way noqonaysaa mar haddii aniga dib i weydiisay inaad su'aal saarayo madaxweynaha cidda kordhisay oo guurtida waa loogay guurtida laakiin shuruudaha jira uu yaala sharcigu dhigo qodobka 8aad baa la isticmaalaa dastuurka 8aad ee dastuurka uu sheegaya si cad u cadeynaya
laakiin saad sheegtay ku raacsan oo iyadoo dhul gariirna dhicin abaara dhicin baa la kordhiyay kuwii ka horreeyay laakiin dawladdiina waxay dadkii kordhiska diidanaa jirtay ugu nacabeed baahayd markaa iyadoo markaa dib u nugu celisay dalka waxaan jeclaa markaan su-aashan ka jawaabayo xisbiyadii mucaaradka inay iyagii meesha joogaan marka ay doodoodii iyaguna ay soo bandhigaan haddaan iminka anigu aan kuusoo dhigo sharciyadii iyo inta cabdiraxmaan ciro aanu arkin inuu dabada udhigayo lagama yaabo inaad adigu aad ka jawaabtid marka waxay tahay tii baa usoo noqda walaalkaygu yidhi tahriibin iyo taata si hore ugu dibdhiso wax taqtiimka ka fahansan waxaan doonaa dadweynaha soo ergelin dadkaas ka jawaabta tahriibinta sidoo kale tahriibinta laba siyood baan anigu aan u arkay madaxweynuhu dee waqtigiisa hadduu dhammaadayna si kale oo sharciya ayaa loogu kordhiyey hadduu hargeysa tagiyo hadduu burco tagiyo hadduu xeergaabo tagina somaliland ayuunba wax laaliya wax barashar oo ay ku timinaa ma aanay jirin tan arrimaha dibadda waxyaabaha soo noqnoqonayo walaalkay uu ka sheekeynayo lahaa horta dee arrimaha dibaddu qaab bay u shaqaysaa madaxweynuhu iskama duulayo wasiirka arrimaha dibadduna iskama duulayo yaa barack obama meesha imanayay yaa bixinaya invitationka marka invitation min weyna marka miyaa layna weydiiyo layna yiri wasiirkeena arrimaha dibadda miyaan weydiina xagee wax ka xidhan yahay miyaan yiri inaynu dhaliisho un la soo bodo inaynu dhaliisho inaynu dhaliisho inaynu dalba Addis Ababa isugu yimanayo African Nation badiba waxa laynoo sheegay yaala markaan la hadlayno dadkan ajnabiga ama siba reer galbeedka inaynu la xiriirno oo aynu arrimadeena iyo maxaan ku raadayay qadiyadeena ka dhaadhicino African Union ka imisaynu la hadlayno ilaa markaynu Somaliland aynu aasaasnay inta waynu la hadlayno qadiyadeena laga hadlay African Union maanta waxba kamay ha keento laakiin fursad ma Maxamed fursad baa laakiin fursadaha maxay naga hortaagnaa waynu loo noqonaa wasaaraddeena arrimaha dibadda aynu maxay hortaagnaa ma garatay inaynu dhaliilo kaliya inaynu meel soo fadhiisanayno maxaa loo taagay waynu ma sheegin anigu madax wasiirkii ma tagin laakiin waxyaabaha kale possibility hor oo la karaya waynu dhinaca ka qadnaa $50 Afrikaana Barack Obama jooga Addis Ababa jooga ka gudbayna haddaad casuumad aad weydin wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka maamulaysa invitation inay bixiso halka lagu mariyo waxaad oranaysaa iyada Maxamed aad baad u mahadsantahay si fiican baad labadiina u dhigteen khadka telefoonkan fursad siinaya dadweynaha waxaan ka cudur daaranaya waxaan hore u sheegay in ay jirayo muuqaal madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo oo kaga bixi doona muuqaalka gabagabada barnaamijka noqon doona si aad dib u isii dhageystaan asaatay khadka telefoonka qof ayaa ku jira magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso barnaamijkuna waa hadaad la socotay qodobada uu ku salaysan yahay aan jeclayn inaad ku koobnaato kusoo dhawaan ku leen halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow magacaaga walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa mukhtaar cali yuusuf waay mukhtaar waxaan salaamaya cabdullaahi oo adigoo barnaamijka daadihinaya maxamed iyo faarax cali cigaal saddexdiinaba si weyn baan idiin salaamayaa adaa mahadsantay intaa markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa socdaalka madaxweynaha gobolka Sanaag uu ku tegay anigu waxaan ka mid ahay dadka u dhashay gobolka Sanaag khaasatan magaala madaxda Ceerigaabo faaraxna xaqiiqatan si weyn baan isu naqaanaa saaxiibna muddo badan baanu ahayn iskuul waanu ahaan jiray runtii xaqiiqatan anagu haddaanu reer Ceerigaabo nahay ama reer Sanaag nahay waxaanu u arkaynay socdaalkaasi inuu ahaa mid siyaasadaysan barasharkii dawladda ka haystay xagga muddo kordhinta in la rabay in lagaga fududeeyo madaxweynaha iyo xukuumadda inay socdaal ugu baxaan gobolada bariga oo taa qodobkaasi horta waa ayidaya xagga waxqabadka haddii aan u gudbo waxqabadka dee waddada ugu weyn Somaliland in ku dhow 400 oo kilomitir oo gobolada Togdheer iyo Sanaag isku xidhaysa halbowle qaranka u ah dhaqaale ahaan halbowle oo amni ahaan halbowle oo ah waajib saaran madaxweyne kasta oo Somaliland ayuu ahaa waana ku mahadsan yahay madaxweynuhu ka qabtay waana soo dhaweynaynaa laakiin waxa aan ka hadlayaa waxa weeye arrimo xasaasiya oo gobolka taagnaa oo aad iyo aad muhiim u ahaa oo arrinta amnigu ay ugu muhiimsanayd ninkii sarkaalka ahaa ee faarax ka dhawaajiyey ee la dilay arrinkiisii oo taagan ayuu madaxweynuhu magaalada tegey waxa laaliyo wuxuu ka qabtayna ma jirto kamana uu hawlgelin aad baad u mahadsantahay aad baan ka xumahay 100% waqti baan ku siiyey waad ku mahadsantahay ra'yigaaga intaa in ka badan runtii ra'yigaaga
waan jeclaan inaan ku siiyo waqti laakiin dadweynaha kale ayaan jeclaan qof kale ayaa khadka ku jira magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysa kusoo dhawo barnaamijkeena waa barnaamijkan ugu talagalay socdaalkii madaxweyne axmed maxamed siiraanyo ee ku mareeyay gobolada bariga somaliland oo haatan kasoo laabtay isagoo barnaamijku intan uu socdanaana ku ogey isagoo marayay magaalada berbera una sii jeeda magaalada hargeysa ayaa waxaan ku leenahay ra'yigaagu muxuu yahay adoo soo koobaya kusoo dhawo barnaamijkan ku leenahay kalsan t v aad iyo aad baad u mahadsan tahay aadna waan idin salaamaya soo dhawo baan ku leenahay magacayga saaraa la yidhahda london waan ka hadlaya waaye dad kor yar hadasho ka war muxuu ahaa aniga barnaamijka walaal waan la socdaa waan dhegeysanayay labada dhalinyarada ah ee inamada ah ee fadhiyaaba si fiican bay runtii u dhigayaan haddaan in anigu ku darsado waxa weeyaan waxba islama diidana haddii ay dooda noqoto yacni wax aanay dadku dee muxuu ahaa ma samaynayso labada waxay ayadayaan in wax la qabtay waxna ay dhiman yihiin gobolada bariga waxa weeyaan markii ugu horeysay somaliland la sameeyey bay hadheen qaybsigii hore la qaybinayay baa lagu dulmiyey boorama markii lagu qaybiyey baa lagu dulmiyey haddaad eegtid embiyada wadanka way ugu hooseeyaan haddaad eegto budgetka wadanka iyo percentage-ka way ugu hooseeyaan marka runtii dee dawladdu qorshe ay wax kaga qabatay oo runtii ay inoo sheegtayna ma jirto dhinaca dhaqaalaha marka la eego dhinaca caafimaadka wasiirkan cusub ee hadda reer bariga ah haddaan idhaahdo ayaa runtii aad iyo aada ugu fiirsaday marka waxaad moodaa inay dawladdu haddii uu madaxweyne xitaa isirado soo booqo ay odhanayaan waa la tahriibiyey waxaad moodaa inay hargeyso oo qurihii somaliland noqotay ishay hanti wadanka soo galaysay qaadatay waxaan aaminsanahay inay wasiirada dawladda madaxweynaha cidda la shaqaynaysaa ay si fiican ula shaqeeyaan wadanka dhan ka wada shaqeeyaan aad baad u mahadsantahay mahadsanid intaasaan kusoo koobaya raygaaga adigana si fiican baa lagu fahma rajaynaya kolley qodob baa jiray noo hadhay lakiin waqtigaa noo saamaxaynin laakiin dadweynaha haddii khadka qof kale ku jirana waan siinaya qodobkaan kusoo gabagabeynaynaa inoogu dambeeyo jecelahay ina su-aal iyo jawaab runay noqoto qodobadaad haysataan kusoo dhawo khadka telefoonka barnaamijka calson t v ee martida oonu kaga hadlayno socdaalkii madaxweyne siiraanyo magacaaga iyo khadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وخضر محمد علمي. أول شيء أنا كهذا كلمة مدودة تري واحد ترتاح عشور بعض شيء باللبا يعني تذكر قبل قلبيت السومال لا ينتجه. بحين شيء سومالي لا ما. قبل طريقة. قلبيتك أيام. سؤال عرض ترماها ولما كان البرنامج كورة في ولا يجري. nimankan oo aqoon-yahanada aniga ixtiraamaya dadooda ka qaybgalayana kumay joojin dadka wariyaashu waa macalimiin dadka waxbay baraan had iyo goor waxay ka hadlaan waa wax xaqiiqo ah waxay doonaan ha yidhahdeen laakiinse arrintaas waa arrin jira maaha arrin weligeed somaliland ka dhacay maaha ma jirto cashuur la yidhaahdo dadka gobolada galbeedku ha bixiyeen aad baad u mahadsantay aad waxaan jeclahay qodobka inaan u saxo daawadayaasha waxaynu nidhi way jiri jirtay baynu nidhi weliba waxaa jirtay wax la odhan jiray dhaqaalaha idinka bariga ahaa kaabista gobolada bariga la odhan jiray siday meesha ka jiri jirtay waxay ahayd oo kaliya dekada berbera kaliya laakiin miisaaniyadda dalka kasoo bixi jirtay dhaqaalihiisa dowladda miisaaniyadoo dhan lagama wada jirin waxaa laga jiri jiray dekada kaliya ayay ku koobnayd kumay koobnayn gobolada intiisa kaliya waxa weyn hadal nina soo yidhi nina sii u qaaday laakiin waxaynu ka hadlayno in cashuur dheeraado gobolada la siiyaa ay jirtay 2% oo dheeraad ahaan dee aan odhanin galbeedka ha la siiyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland oo dheeraad u ahaa bariga oo galbeedka oo ahayd aad u maasay khadar inuu saxano waan diyaar baan nahay waayo waxaanu u diyaar u nahay khaladka bilaadan baa leeyahay wal khaldami karaa laakiin kolleyba arrintu inay jirtay baan isla qarnay sidoo jirtay mooyaan qodobka ugu dambeeyay soo qaadanaynaa si kooban oo su'aal iyo jawaab ama waqtigu dheerinayo waxay su'aasha leeyahay gobolada bari iyaga laftooda bulshada ka soo jeeda waa adiga labadiina is hor fadhiya midba aragti gooni u qabo ya bulshada lafteedu qaybtee ayay ku leeyihiin horumartan gobolka laga hadlayo hadday tahay kii dowladdeedii kaga jiray hadduu yahay kii wasiirka ahaa dowladda ahaa ee gobolada Hargeysa bay fadhiyaan qurba jooggeeni Maxamed labadiina weeyaan su'aashu waa mid dhex taalada ama su'aashu waa mid meesha taale laakiin waxaan moodaa mid kale oo muhiim ahayd oo ahayd Soomaaliland development fund si siman ma loogu qaybiyaadi
وتاوي تام كوريا تام كوريا أنا كوريا وقتي أوجد من وجود يا waliba iyadoo kooban oo qodobeysan baan keenayaa waxaan doonaya ummadda inaan u sheego waqtigan kir meeshaan ka soo helay sooskeeda ka soo xigtay waa wasaaradda qorsheynta tan waxa weeyaan waa Somaliland Development Fund okay waxa loo qaaday in la siiyo waxbarashada lagu horumariyo gobolka Sool iyo Sanaag lacag gaadhaysa 2 milyan iyo 608 oo dollarka Mareykanka Sool iyo Sanaag mar labaad waxaa loo qoondeeyay 4 milyan 985 kun oo dollarka Mareykanka ageen ayaa loo sameeyay xaaladda waxbarashada waa tan ka hadalno jaamacadeedii qurba joogta Somaliland reer Sanaag ayaa bixisa lacagtani xagee qabatay lacagtan yaa kontraageeda siiyey yaa lagu bixiyey markay noqoto caafimaadka waxaa ka mas-uula wasiirka caafimaadka baa iyaga ka mas-uula waxaa jirtay muddo dhaweyto in company in lagu siiyey NGO lagu siiyey contract lagu siiyey leeyahay shifaat hay'ad inay horumariso ama qayb ka qaato horumarintii oo dawladda u ah markaa subcontract iyadu bedgareeyay caafimaadka gobolada Sool iyo Sanaag marka aad wax leedahay fikir ma jiraan ay cidib dhigaan waaniga kula dawladii dib joojinta ayaa laga leeyahay hospitaalkii lacag inta gaarayso marka labada gool la isku daro labada gool Sool iyo Sanaag marka la isku daro gaaraysa ilaa 9 milyan oo dollarna waxa ay ka soo baxday sanduuqa development Somaliland bishii saddexaad 2015 question waxa weeyaan meeda lacag ما شفت حساب ده زمان حسابتني إني كسب بحث عنه ما هو ما سيدي ده بينه شفت العقل لو قندي العقل لو قندي وين عم بقول هيا واسطة سؤال الكل شجع واحد عليه نمبر كفيجر إسكا إسكو مدي ده وشان أنت بيج كده أي بس يورو كده أي سؤال شو هيدا هاتو ده واحد سيسي من قبل الله ضبوه الآن بسؤال شو مركز تاسو ده قبل الله سؤال قالوا محمد والله ضبط ليك أول وقتي نقول SDF وحي هالشيء سنة قبل كسنة و 5% تقدر وليه توم بقول كذا وي تو إنه وصلنا قندنا محمد ما حد كيف شو بلاش وقتي أو كذا نيرين إنه وقتي إيرينا ما هو بصور إسكا وكأنه العكس إنه قرط أي بحدي يا هالك يكبح ولا إنه مش waxay noo sheegeen oo kaliya in la qorsheeyay in loo qorsheeyay ayay noo sheegeen laakiin account-ka inay ka baxday anigu ma hubo ma garanayo mashruucani haba la qoondeeyay imsa sana loogu talagalay lacagtan in la isticmaalo masanad baa labad baa saddex ilaa hada maxaa ka qabsoomay marka waxay tahay inaynu haddaynu doonayna inaynu qodob u dul istaagno lacagtii halkan ma odhan karayno waa la cunay ma baahantay waayo intaas la qorsheeyay waynu sidii aynu soo sameynaa inaga waxa kaliya su'aasha walaalkay soo weydiiyay si siman ma loo qaybsadaa laakiin hadda doonaysid detailkan duwan kula baadido aad ma santiin su'aashii ugu dambeysay lama gaarin waqtigii uu yiri walaalkay anigu ma hubo inay baxday laakiin in la qorsheeyay ayuun baan anigu kulli barnaamijyo kala rajeynaysa ka soo noqonaa inuu aad ugu sii la fugurno waxaan wax umadu leedahay ma laha madaxweynuhuna male wasiirna male shacab dadweynaha inooga timid lacagta marka waxaan u baahanaynaa inuu waxaan doonayaa waqtiga awgeed kusoo koobaha iyo maya su-aasha si kale aan u dhigaya marka hore aan idinku siiyey oo ahayd kaalinta ay ku leeyihiin qurba jooga ama guda jooga goboladaasi ee horumarta gobolku ma yahay mid lagu farxi karo waa hayo maya ama horta ma oran karo hayo maya waan xidhay hadii kale way anigi ba qurba jooga oo diyaano qurba jooga markaas ku soo dad badan ku qabtaa sidii loo baahnaa ama laga filayay dib wax ma lagu geliyaa gobolkii qurba joogtu sidii la filayay may iyo gudaha inta joogtaba sidii la filayay may dadka matala gobolka ama heer dawlad dhexe ku jira ama dawlad sare ku jira inkastoo aan iba jirin baan u maanaya laba wasiir dawlad labada gobol leeyahay baan u maanaya dawladda kulmiye de wax impact ay keeni karaan adiga wala qaba maadaama anda gobolka soo jeeda laftaadu qaybtaas aad goboladaas aad tahay adigu laftaadu wala qaba walaalkay dadkii qurba jooga ahaa ee gobolada u dhashay sidii la doonayay inay uga hagar baxaan uguma hagar bixin inkastay dadaaleen waxyaabo fara badan aad loogu dirsaday qabteen hadday caafimaad tahay hadday iskuul tahay hadday waxbarasho tahay intaasoo iskuul iyo intaasoo ayay rangareeyeen qurba joogu laakiin halkii la doonayay weli ma gaarsiisan aad baad mahadsantihiin waqtiga awgeed in yareeyay labadiina waa idin mahadnaqayaa Faarax Cali Cigaal iyo Maxamed Cabdi Raabi oo isagu xisbiga kulmiye afayeenkiisa qurba jooga dalka UK iyo adigoo ah aqoonyaha ka soo jeeda gobolka Sanaag
oo kuna jira howlaha bulshada iyo horumarka gobolkaasi iyo guud ahaan Soomaaliland bad mahadsantay waqtiga oo aan noo saamaxaynin dhamaantoodba intaas ayaan kusoo koobayaa sayaate waxaan idinka raali gelinayaa intiina isku dayeysay khadka telefoonka inaad soo gashaan oo aad barnaamijkan qayb qaadataan waxaan isaga iman doonaa barnaamijyo kale oo aynu ku naaqashi doono oo sidoo kale aynu hoos ugu dhaadhacno oo aan ahayn in la yow-yowtabo wixii ra'yiga waxaad ku dhaafi kartaa barnaamijkan halkaad ka daawanayso mar kale waa internetka waa kalsontv.com wixii ra'yiga intaas kusoo koobaya barnaamijkana waxaa noo fadhiyay maxamed cadoowe ayaa noo fadhiyay waa anigu Cabdilaahi Maxamed Cali barnaamijkan isku soo dabariday inta dib u kulmi doono dhamaantiinba waxaan idinka tegayaa hadallo yar oo kooban oo ka hadlayo madaxweyne Axmed Maxamed Siraayo magaalada Laascaanood oo 27 bisha July uu marayay iyo magaalada Cerigabo oo iyaduna ah magaalada caasimadda waa gobolka Sanaag inta dib u kulmi doono dhamaantiyo nabadgelyo aad noo soo dhaweyseen hadda tiin reer Laascaanood odayaasha garaadada shacbi weynaha dadweynaha kulligii sida u dhantihiin aad iyo aad baan ku mahadina sida qiimaha iyo qaayada noo soo dhaweyseen waa sidii dhaqanka iyo caadadeedin ahayd ixtiraamka iyo qadarinta aad noo muujiseen aad baan idinku mahad celinaa waanu idin dhegaysanay dalka waxaan u maraynay baahiya aad sheegateen talooyinka aad soo jeediseen waxyaabaha aad tabateen iyo waxyaabaha aad ku faanteen iyo waxyaabaha aad tarteen dalkaba iyo inta laydin qabtay intaa waa ka waranteen annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa waxaan horta dalka u maraynaa waa inaynu xogogaal noqonno oo waraysanno oo dadka iyaga ogaanno waxay tirsanayaan iyo waxay qabaan ee aad noo soo dhaweyseen haddaad tiin reer Laascaanood odayaasha garaadada shacbi weynaha dadweynaha kulligii sida u dhantihiin aad iyo aad baan idinku mahadina sida qiimaha iyo qaayada noo soo dhaweyseen waa sidii dhaqanka iyo caadadeedin ahayd adiga waqtigeeda socday farxad weyn bay noo tahay inaan halka maanta ugu dhawaadno jaamacadda Sanaag University halka macallimiinteedii iyo ardaydeedii inaan maanta halka ugu dhawaadno xafladda kala soo qayb galno jaamacadda tan oo mid waxtar weyn u leh dalka iyo gobolkaba waa mid aan asaaskeediina aan wax ka ogeyn oo wax ka qabanay iminkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay halka hawsha kasii wado waxaan leenahay ilaahay idinla qabto wuxuu ugu dambeyntii madaxweynaha iyo wafdigii ballaarna uu hogaaminayay oo maalmahanba safar shaqo u joogay gobolada bari ee dalka u kici timeen dhinaca iyo caasimadda dalka ee Hargeysa waa Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi Kalson TV Cerigabo.